luuqa fariisan leed hadda kubada ciyaar lahayd dhanka weerar ma gaaban iyo garan ayaa magaalada ku aadi lahaa fanaan la'aan banaan kusoo wareegi lahay anoo fiiro qaado ayibkii Munir dartiisa soo Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kusoo dhawaada channelkayga say comedian maanta garabkayga waxaa fadhiya saaxiibkayga Aksi mana walaalkay mana garabkayga iyo walaalkayga kale Maxaas marka maanta macnaha ma wadno barnaamij oo anaga noo gaar ah ninkaana commentiga wuxuu ku qoray haddaad lacala gabdhaha way maqlayaan haddaan nin ahaa lahayd oo laga dhigi lahaa maxaa samee lahayd marka commentiga wuxuu gaaray 1000 iyo something ada 2000 u dhow yahay marka commentiga wuxuu noqday qosol fani marka adiga qaaran ka soo qaadan doona qaar kale mar kale wax badan iyo qosol si ku jiro marka intaan ku qosliyaan soo qaatay marka insha Allah haddana maaragta asagaan weydiina wuxuu ka dhaayaan fiirna commentiga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu team sayga dhammaan waa idin salaam iska soconay la salaanta maxaa teen xaq malaamay salaadka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bisa maxaa raacayahay wax kala mada qaatay ay haddana barnaamijkeena wixii kaftanay waa kaay su'aal waxaa jirta aan TikTok dad ku soo weydiiyay gabdhaha oo qaas u ahaa waxaan dhahay hal maalin hadii wiilga dhigi lahaa maxaa sameyn leedan marka gabdhii afkay soo burteen nimanka commentiyada ku dhageen commentiyada wada akhrinayna marka yaa ku bilaabana leedin waxaan ku bilaabaa video ga dhow half ko idin soo dhigana insha Allah sheena maanka waxay dhahdaa mataqaanaa haddaa lacala hal maalin gabar wiil liga dhigi lahaa dhahdo buumo gaaban iyo garan ayaa magaalada ku aadi lahaa ageed maalin inay ka faa'iidaysatay bes ana buumo gaaban macnaha garamada dadka qaar garamo reer Hargeysa garamada waxay ka saaranaadaan wadano laakiin garam waxay ka wadaa bahalka go okay qofta reer xamar waa reer xamar waay okay garanka caadiga iyo buumo gaaban garan buumo gaaban maxaa samar ma dawaal leh socota xeebta socota xeebta wala jecelkeeda ka hadasho kii kale commenti kale to gabadhan maxaa la xamda waxay dhahday hal sawir ayaan gali lahaa si markaan dumarnimada ku laabta xasuusaan u haysto wiilan soo noqdaa waxaan soo mar camal dhigleed wallahi yani jaaniskeeda ka faa'iideysan leed wallahi billahi ana dadku waxa dhila ma taqaana qofka frustration ku furo ama murug haysto wallahi waxa dhila TikTok iska soo gal wax kala sameyn comments ka akhrin wallahi billahi alta ku murugaan kun iyo waxa la jir mid kale waxay dhahday gabadhan waxay dhahday hadii lacala aan nin ahaan lahay dhahday halkaas maalin waa bixi lahay ku dhahay ifraax 35 Sheekh Mustafa baa hab siin lahay dhahday wallahi ما شاء الله والله جعلك وفيعي ما شاء الله شيخ مصطفى دجعشه دام لي لين فنانه والله ما شاء الله جعل كذا في عيا والله بالهميه لا gabadhan waxa la dhahaa Zahra Noor 143 waxay dhahday hadda hal maalin wiil noqon lahaa gabdhaha foodeen lahaa billaah luuqa fariisan leed hadda agilida qofta yarta abu wallahi billaah gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdhaha adduunka ugu fanisan oh my god luuqa gilla kula gabdhaha foodeen lahaa wah hadda adag gabar hadda lagu foodena xadiilad maxsamaaleed kaalay kuduusa wan waxay dhahday hadda halkaas maalin jaanis waxaan ka faa'iideysanayaa fortune balbalaarka ayaan aroos la oo caata caata kale galad Usman dhamana fortune balbalaarka noqolaa markaas oo isbedel lahayd okay next gabadhan waxa lahaa deeqa 5685 waxay dhahday hadda hal maalin wiil noqon lahaa istustus baa noqon lahaa naago dhan say daba ordan okay xariif aska dhigi lahaa ana walaasalaana isgibla showiste waa istagtay lahaa gawar ayaaniita la maxay mataqaana kubada ciyaar lahayd dhanka weerar man amal ابو والله بلا قبلها معجزه والله قبلها فني والله اي اي halkaas maalin loo badan aan keen lahayd مو محل laga darto والله boqol loo geen leed kubada ciyaar lahayd dhanka weerar okay gabadha marka kubada fiirsata walax badan ka taqaana tarwa wallahi okay gabadhan waxa lahaa
shahaada maajid 3 waxay dhahday haddaa hal maalin wiil noqon lahaa waan soo wareegi lahaa anoo xaafadda ka fasaxaanin waxaa dhibta mataqaanaa gabdhaha waxaa dhibta waxaa u baxday intay u socotaa intay ka yimaad ay ragga lama dhahay yaa dhaha wiilasha fasax la-aanay baxan ragga lama runaa fiican ee ragga wallah fasax ma qaatay taa aad waa lagu leeyahay sabaa horta dumarka ma aragtay sember in laga warhayo way fiican yihiin sababtoo ragga ay iska maqayin laba kala jecel ma halaaway laakiin dumarka waxba ka halaaway ma fahanta waxaa saadiya mid kale oo dalay oo comedy soo qaatay saaxiibkeeda midkiisa soo qaatay wallahi waxay dhahay mataqaana waxay dhahaa Yasmin Ali Eedala dameer ayaa intaan gato ayaan wadi lahaynaa yaa igu raacsan jacal muniira ku raacsan muniir anaa la hadlaayo bad dameer hadda haddii aanoo guutiyaa foor ay kasoo dameer okay dameer badan oo haystaa dameer badan oo haystaa dameerka laakiin gabdhaha wadi karaan soo jaclay dhayno laakiin korkay ayuu taa gabadha waxaa lahaa dhudi 60 waxay dhahdaa hal maalin wiil noqon lahaa dad iyo duuyo waa dhici lahaa maanina tafsiir cid isbaarada qoray qaadan leeyahay waya wala reemidu waa minaatas horta midaan Zaynu Ishreera saaran sigis wax fiican ay dhahdo waxay dhahay muaddim masaajidka noqon lahaa 5 salaad ma sha Allah ma sha Allah wax fiican dadka isku mid ma wala 9 salaad commentiyada waxay u badan tahay mataqaanaa qofna qalbigu ka soo hadla qofna baashaal iyo kaftan u soo qoraa wallahi bilaay buuma igana dhabay ka taagay wadaas waxay dhahday haddaan hal maalin wiil noqon lahaa finaan la-aan banaan kusoo wareegi lahay anoo feero qaado wallahi billahi mucjiso finaan la-aan xayso ku hees gabadhaasna waxaa la magaceeda qumayo hay qumayo ilawed qomay waxyaalaha badan ee hadda ku raran tahay is astura ka batay yahay yeelinta aba gabar kale waxaa la ikraan one set waxay dhaan taqaanaa surwaal iyo shaad inta xirto aan soo wareegi lahay kula ma wallahi meeqa gabar hadda soo shaati xirat laakiin wallahi ma sha Allah haddii ay waxay cadeynaysaa inaad sixirinin ma sha Allah ay fiican gabadha waxaa lahaa canabita waxay dhahday dooq wareer ay u dhacay waxa sheekay salaahay waxay dooratay kismis wiil haddaan waqti waxaan noqon lahayd su-aasha la weydiiyey boqol wax is weydiisay way ka dhacday marka akala su-aasha kale waxay ahayd xamda buurame reer buurame aadan islaaminay gacanta waa qalfuf qalbiga ka salaam gabadha iskala waa ramadaanta soddonaan dhameysan lahayd wallahi haddii aan nin noqon lahay ma sha ay wanaagaas waa kugu ogna xamda buurame wallahi ma sha Allah gabadhan istariin xadaan taqana hadda hal maalin wiil noqon lahaa shaqada guriga ka nasan lahaa ciyaartooy noqon lahaa mees iska barajan lahaa shaqada guriga wala isku geesaday gabadh alaab waxa u dhaqi weysay raashin waxa u karin weysay guri waxa u xaqi weysay kafta wax ma laga qabo barnaamijkeen macnaha wax badan waaye waxaan jeclaysanay in fan ee macnaha wasi akhriwaan inta macnaha kor aan soo qabsan inta kor bisala soo qaat inta kale hadaan macnaha wax fan aan ku helno waan la wadaagi doonaa videogaas wallahi da aragto oo frustration kasto wallahi ta commentigaas horta commenti wallahi bila qosla ka imaanay videogan gabdhaha bis waay gabdhow hal maalin haddii jaanis lagu siiyo inaad wiil noqotid waxa kugu horeeyo aad samayn lahayd maxaa waay commentiga noogu soo sheega molarga gigante marka insha Allah haddana ma aragto barnaamijkan gowgadiisa waay noo soo xir salaamina insha Allah dhammaan waa idin salaamna team Saiga team Action anoo salaam team Mahas انت اسكو جعاله مثلا انت اسكو جعاله تيم استاك مثلا